Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadli doonaa qaybtii saddexaad, macluumaad ku saabsan caasimadaha dalalka Afrika, cabirka bedka ay ku fadhiyaan iyo tirada bulshada ku nool. Qaybtii hore waxaan uga soo hadalnay dalalka ku teedsan bariga Afrika. Mar kale ku soo dhawaada macluumaad ku saabsan caasimadaha dalalka ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika. dalka 38aad ee maanta aan ka hadlayno waa Chad. Caasimadiisu waa magaalada N'Djamena. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 104 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 1.6 milyan oo qofood. 39 dalka Cameroon. Caasimadiisu waa magaalada Yaoundé. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 180 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 2.8 milyan oo qofood. 40 Central African Republic. Caasimadiisu waa magaalada Bangui. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 67 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 889,231 qofood. 41 Congo Kinshasa ama Democratic Republic of Congo. Caasimadiisu waa magaalada Kinshasa. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 9,965 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 17 milyan oo qofood. 42 Congo Brazzaville ama Republic of Congo. Caasimadiisu waa magaalada Brazzaville. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 264 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 1.7 milyan oo qofood. 43 dalka Gabon. Caasimadiisu waa magaalada Libreville. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 189 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 703,940 qofood. 44 dalka Equatorial Guinea. Caasimadiisu waa magaalada Malabo. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 21 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 297,000 oo qofood. 45 dalka Angola. Caasimadiisu waa magaalada Luanda. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 113 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 2.5 milyan oo qofood. 46 dalka Zambia. Caasimadiisu waa magaalada Lusaka. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 418 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 3.48 milyan oo qofood. 47 dalka Malawi. Caasimadiisu waa magaalada Lilongwe. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 728 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 989,318 qofood. 48 dalka Mozambique. Caasimadiisu waa magaalada Maputo. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 348 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 1 milyan oo qofood. 49 dalka Zimbabwe. Caasimadiisu waa magaalada Harare. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 961 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 1.5 milyan oo qofood. 50 dalka Botswana. Caasimadiisu waa magaalada Gaborone. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 169 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 421,907 qofood. 51 dalka Namibia. Caasimadiisu waa magaalada Windhoek. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 5,133 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 431,000 oo qofood. 52 dalka South Africa. Caasimadiisu waa magaalada Cape Town. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 400 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 4.6 milyan oo qofood. 53 dalka Lesotho. Caasimadiisu waa magaalada Maseru. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 138 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 330,760 qofood. 54 dalka Eswatini. Caasimadiisu waa magaalada Babane. Waxa ay ku fadhisaa bad cabirkiisu dhan yahay 82 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 94,870 qofood.